بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإذن سلامي دمانتين ميلو الباجوكتين سو دوادا maanta waxaan aadaynaa santar yar oo aad u qurux badan waa agmari waaye marka waan isla galaynaa insha Allah meelan balan ku lahaa subaxisaan u baxay waan ku soo daalay markaan ka soo dhamaadayna waxaan arkay santarkan yar oo qurux badan waxaan isdhahay gal oo ka soo maamulo marka ma sha Allah tabarakallah Uganda intaan imaanin ani waxaan ka aaminsanaa meel aad u qurun oo qaab dare laakiin ma sha Allah meel qurux badan ku yaala maqaayada waxaan ku qoran maama shawarma ku qoran shawarmadeedana ma sha Allah aad ay u macaantay lagama sheekeyn karo cid taqaano ba shawarmaha micnaheeda garanayso iyo macaankeeda dhadhamisay marka ma sha Allah tabarakallah meeshaan aan imaanay oo fariisanay meeshaan acbaar ku nasanay shawarmahan ka dalbanay shawarma inaan cuno wax iigu dambeysay Sacuudi Carabiya marka maanta shawarmahan wuxuu isoo xasuusiyay ka cuni jiro kale magacana magac cajiib way maama shawarma ku qoran meesha waa kana ma sha Allah aad ay u qurux badan tahay intaan imaanin ka hor wadankan waxaan ka aaminsanaa waxaan arki jiray sawirkeeda aan arki jiray boor iyo meel madow iyo meel aad iska qaab daran ba arki jiray laakiin ma sha Allah wadanka aad ayuu u qurxoon yahay saa u maleynay ma ahan marka ma sha Allah meel badan oo qurux badan ku yaala meesha joogtid wadanka ku nooshahay waa iska fiican tahay inaad ogaatid micnihiisa meeshuu ku yaalo waxa ku yaalo meelaha qurxoon waa ku qasbantahay inaad raadisid ama aad ogaatid waayo wadanka waa ku noolahay waan iska dhex fadhinayaa dhinacu iga jira iyo waxa ku yaalana ma garanayo waa ani kule ilama fiicno ani hadda caafimaad qabo waxaan jecelahay inaan ka warkeeno wadanka aan ku noolahay inaan ka warkeeno aan jecelahay marka ma sha Allah maqaayadan way igu cusub tahay maanta iigu horeyso waana ka helay cuntadeedana cunta laga sheekeyn kara ma aha waana loo keenay wixii aan dalbanay shawarmihii iyo cunto kale macaan aragtideedaaba ku qancinayso dhadhankeedana iska badaaba horta waa maqaayadii labaad cuntadooda aan ka helay hadda ma sha Allah intaani hadda Uganda imaaday meelo kale oo kasii qurxoon way jiraan oo cuntadooda kasii macaan insha Allah waan tagi doonaa meesha marka Ilaahay ii kaso waan tagi doonaa insha Allah cuntadeena waa dhameysanay luuqa gadaalan siigan waxaan meeshan la wada galay geli aan soo arkay marka dukaan weyn ku yaala ma sha Allah dukaanka waan galay buugag aan aad u rabay oo raadinayay oo ilmaha u rabaan ka helay ma sha Allah qaybta buugagta waan u soo gatay adiga waa iska soo adeegana wixii adeeg guriga laga rabay aan iska soo gatay ma sha Allah iyo rootigana aad u jeclaa abuukaygaani rootigana aad u jeclahay ma sha Allah waan soo helay meesha la iigu sheegay waan aadaa dukaankan soo dhaxmarnay kaasadii soo aadnay dhanka kaasadan soo aadnay kaasadii ay imaanay ma sha Allah waa soo baxnay banaankan soo aadnay waaba ka soo dhamaanayba marka waxa uu sii soconaa xaafadeena ani in faraha la iga tumi doona u maleynayo waanda wax duubub lama ogole meel kasta iskuuriga u taagan mardow in faraha la iga garaaci doona u maleyna banaankan soo aadnay ma sha Allah marka waa soo baxnay gudaha waa ka soo dhamaanay santarkii waa ka soo dhamaanay waa bixirabnaa xaafadeena u soconaa qeyr caafimaad idin rajeena idinkana soo dhawaada kulan dambe oo xiiso leh insha Allah